darro ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aanno ayaana ka soo bixi doona go'aannada soo bixi doona aan dhowrno waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego annagu adinka ayaan garabkiinna nahay waxaan ku dhisnay laamiga waxaan ku dhisnay lacagtii adinka laydinka qaaday ayaa laamiga idinkugu dhisnay haddii nin daalim ah oo wax bi'iyo daalimka ciqaabta in asaga loo ciqaabo waaye laakiin lacagtaadii adiga aad bixisay inaad baabi'iso ma aha sidaas darteed laamiga iyo meelaha danta guud oon annagu leenahay oo canshuurtiinna lagu dhisay aan wada ilaashanno cid kasta oo edab darro iyo wax aan munaasab ahayn kula kacda bulshadana sida aad dareenkiina u muujinaysaan ayaan idinkaga mahad celinaya khaladaad kasta oo dhaca si nabada ayaan ku muujinaynaa sida aynaan u oggolayn haddana annagoo muujinayna dareenkeenna ayaa haddana waxaa loo baahan yahay inaan magaaladan annaga magaaladeenni ah ee burburka ka soo kabanaysa inaanaan burbur u soo celin oo aan taxadirkeeda lahaanno waxaad og tihiin burbur in laga soo kabanayo dadaallo badan ayaa loo maray in burburkaas laga yimaado wiilal badan oo idinka mid ah wax yaraan ismaqalno raalli ahaada dhalinyaro raalli ahaada bandowga waan ka hadlay bandowga waan ka hadlay aan ku celiyo mar kale dhegaysta bandowga aamusa aan idinla hadlo dhegaysta arrinta bandowga iyo waxyaabaha kale oo shacabku oo caqabadda ku ah taladeeda dawladda u fadhida go'aanaha ka imaanaya saacadaha soo socda arrintaas ayaa waxaan doonayaa arrintaas inaad iga qaadaan ninkii shacabka soomaaliyeed ku xadgudba dhibaato abuura waxaa loo baahan yahay sidaad hadda u muujiseen dareenkiina inaad u muujisaan shacab iyo dawlad waa ka wada safarnahay in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed la dilo oo lagu fudado dilkiisa waxaad og tihiin cadow ayaa nahaya ma ahan inaan dil kale ugu sii darro dadka soomaaliyeed arrintaas waa arrin aan aad uga xunnahay waa arrin aan looga hari doonin qofka sameeyey waa arrin loo maxkamadayn doono ehelada dadka la dilayna waxaan doonayaa in la ila soo xiriiriyo oo maamulka degmada oo ii keeno haddii rabbi idmo si aan u wada maxkamadayno intaasaan raba inaan idin idhaahdo bannaanbaxyadii dareenkii aad ku